guddiga qabanqaabinaya aaska qaran ee allaha u naxariistee ugaas cabdulaahi ciise nuur oo maanta shir jaraa'id ku qabtay degmada boocam ee gobolka sool ayaa waxay shaaciyeen xilliga la aasi doono ugaas cabdulaahi ciise nuur oo maalinimadii arbacadii ku geeriyooday dalka turkiga halkaasi oo xaalad caafimaad loo geeyey. daahir faarax aadan oo ka mid a qabanqaabiyaasha aaska qaran ee ugaas cabdulaahi ciise nuur oo ugu horreyn shirkaasi jaraa'id ka hadlay waxa uu sheegay in maalinimada axadda ah ee fooday nagu soo haysa taariikhduna ay ku beegan tahay 21 Agoosto ugaaska lagu aasi doono degmada Boocame halkaasi oo horay ugaaska u deganaa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan ummadda Soomaaliyeed ee saxaafadda naga daawanaysa meel walba ay dunida ka joogaan aan doonaynaa inaan u sheegno in dhawaan haddii alla idmo uu ka dhici doono aaskii ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur magaalada Boocame. ugaaska haddii alla idmo waxa laga soo qaadi doonaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaanu iman doonaa la keeni doonaa maalinta axadda ah ee taariikhdu ay tahay 21 bishan August 2016 magaalada Muqdisho aadan cadde International Airport 8 subaxnimo ee maalinimada axadda haddii alla idmo ayuu ka soo degi doonaa. markii halka laga soo dejiyay haddii alla idmo isla saacad gudahood waxa lagu soo wareejin doonaa diyaaradda u soo qaadi doonta magaalada Garowe airportka Konoko ee magaalada Garowe ayuu laga soo dejin doonaa meydka haddii alla idmo. halkaas oo ummadda Soomaaliyeed insha Allah diyaar ugu noqon doonta ay ka soo raaci doonaan loogana soo gudbin doono goobta lagu aasi doono haddii alla yiraahdo magaalada Boocame. ummadda Soomaaliyeed ee meel walba jooga xilligaas uu aasku dhici doono ayaanu ku marti qaadaynaa inay si wanaagsan oo xirmo iyo sharaf leh ay uga soo qayb galaan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. caaqil Cabdulaahi Caynab Faarax oo isaguna ka mid ah isimada wax ka wada qabanqaabada aaska ugaas Cabdulaahi waxa uu sheegay in aad loo adkeeyay amniga degmada Boocame iyo deegaanada ku hareeraysan isla markaasina ay u furan tahay cid waliba oo ka soo qayb galaysa aaska ugaas Cabdulaahi. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaanu marka hore u diraynaa tacsi tiraanyele oo tacsidaas oo ah geeridii ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur oo ku geeriyooday Turkiga lagana soo qaadi doono oo la keeni doono degmada Boocame lagu aasi doono 21 bisha August oo ku beegan maalinta axadda. cid kasta oo Soomaaliya oo ka soo qayb gali doonta aaskeeda ama rabta inay ka soo qayb gashana gacmo furan iyo waji furan iyo qalbi furan iyo niyad wacan baanu ku soo dhaweynaynaa. waxaanu kaloo rabnaa inaanu ummadda u sheegno goobtan Boocame amnigeeda waxaa ku shuqul leh dadka deegaanka iyo guurtida ayaa ku shuqul leh. qof kasta oo imaan doona waxaanu ku wargelin doonaa inaan laga ogolayn wax la yiraahdo siyaasad. qof kasta oo yimaada aas buu imaanayaa, qof kasta oo yimaada tacsiib buu imaanayaa, qof kasta oo yimaadana aaska iyo tacsida wax dheeraad ka ah ergooyinka Soomaaliyeed ka imaan doona kama ogolin. degmada Boocame oo 60 kiiloomitir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada madaxda Puntland ee Garowe waxaa ku sugan marti kala duwan kuwaas oo ka qayb galaya aaska qaran ee marxuumka waxaana si aad loo adkeeyay amniga guud ee degmada Boocame oo ah halka uu aasku ka dhici doono. Cabdi Fataax Cabdulaahi Kalsan TV degmada Boocame.